لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan kusoo jirnay barnaamijkeenaha kayfa nastaqbil shahra ramadaan seen u qaabilaynaa bisha ramadaan maxaa noogala baahan yahay intayna bisha dhalanin inaan sii ogaano inaan la imaano maxaa noogala baahan yahay waxaan soo tilmaanay qodobo dhowr ayaan soo tilmaanay waxaa kaloo ka mid ah walaalayaal waxyaabaha loo baahan yahay bisha ramadaan intaan la gaarin inaan baranno axkaamta la xiriirta bisha ramadaan si cilmiganaga uu u noqdo ramadaankanaga uu u noqdo mid cilmi ku salaysan aqoon ku salaysan garasho wato waxaan rabaa inaan tilmaamo soonku yuu ku waajibayaa qofka inuu sooma laga rabo oo soonku waajibka ku yahay qofkee wey waa axkaam qasab ay tahay mudan inuu qofka garanayo ramadaanku wuxuu waajib ku yahay qof kasta oo muslim ah qof kasta oo muslim ah waajib ku yahay baaliqin oo haddana qaangaar ah labo caaqilin caqli leh garasho leh qaadirin cala asawm soomkiina awoodo oo karo inuu soomo intifaau lmawaanic waa in qofkaas wixii mawaanic ah uu ay ka anfoon tahay oo ka baxsan tahay oo laga wado hadday gabar tahay waa inaysan caado qabin waa inaysan umul ahayn waa in qofkii uusan ahayn kaafir inuusan ahayn taasaa laga wadaa intifaa mawaanic waa wax fudud qof walbana inuu barto ay qasab ay ku tahay waajib ay ku tahay soomku wuxuu waajib ku yahay qof kastoo muslima gaal soom kama asaxayo isagoo unbaa isdaalin isagoo unbaa rafaadi mooye soon kama asaxayo qofka soonka lagu leeyahay waa qofka muslimka ah wey waxaana kutusaya xadiidkii nabiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam markii mucaad uu diray yaman uu u diray nabiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam talooyin buu siiyey wuxuu yihi islaamnimada ugu yeer hadday kaa yeelaan waxaad u sheegtaa in allah subxaanahu wa tacaala 5 salaadood fii kulli yowmin wa leyla inuu ka rabo 5 salaadood in laga rabo u sheeg hadday kaa yeelaan zake in lagu leeyahay u sheeg meesha marka laga daliilsanayo xadiidka waxaa weeye takaaliifta sharciga ah waxaa asal u ah islaamnimo asal u ah marka qofka waa inuu muslim yahay wey sidaasuuna xadiidka tusaya nacam baaliq waa inuu yahay caaqil waa inuu yahay waxaa daliil u ah oo kutusayo xadiidkii nabiga sala allahu alay slm xadiid caliy rufica alqalamu can 3 can الnaa'imi xataa yastayqid wa can الsabiyi xataa yaxtalim wa can اlmajnuuni xataa yacqil buu yihi nabi sal اllah alيه wasalam qalimka waxaa laga kor yeelay oon waxba loo qabanaynin waxna loo qoraynin waxna laga rabin qofka hurda xil ma saarno takliif ma saarno sabiga baaliqa aan ahayn ilaa uu qaangaaro oo uu ka ixtilaamo maxaa lagu qaangaaraa waa mas'alo kale waxaa ka mid ah xadiidka suu tilmaamaya qaangaarka in uu qofkii isku arko shahwo inay mini ka imaado hadday gabar tahay waxaa usii dheer inay caado ay ka imaado haddii intaa la helo qofkaa ramadaan waajib buu ku yahay waa laga rabaa waana laga doonayaa nacam xadiidkii buu sii socday wuxuu yihi xataa yacqil ilaa uu qofkii wax garto majnuunka waxba lagama rabo ilaa uu wax garto oo junuunkii iyo waalidii ay ka zuusho
oo caqligiisii iyo dareenkiisii uu usoo noqdo asagana waxba lagama rabo. qaadirun cala asawm waxaan nidhi waa inuu awoodo soonka, qofku inuu awoodo. allah subxaanahu watacaala fi suurati albaqara waa kii ku tilmaamahayay wacala aladiina yutiiquuna kuwa awoodo soonka inay soomaan weeye. tafaasiir badan baa aayadda ku jirto, uma sii banbaxayna tafaasiirteeda, laakiin qofka waxaa la rabaa inuu awoodo soonka, inuu awoodo inuu u adkaysan karo in dhib iyo dhibaato uusan kala kulmaynin iyo mashaqo. hadduu awoodi waayo waddo kalaa u furan sharcan, inuu hadduu yahay awood la-aantaasna waxaa keeni kara sababo badan baa keeni karo. waayeelnimaa keeni karto, marad baa keeni kara iyo xanuun. waxaa keeni karo in qofkii uu xaalad kale uu ku jiro, safar inuu yahay baa keeni kara, musaafir inuu yahay ayaa keeni karta. dadka ayaga ah oon soonka markaa aan karin, axkaamta la xiriirta ayadana insha allahu tacala dib baan ka tilmaami doonaa. oo ayaga waxaa laga rabaa si kooban haddaan usii sheegno inay bedelkii soonka inay dacaam bixiyaan, maalin walba inay mud bixiyaan, kiilo inay bixiyaan raashin ah, masaakiin inay siiyaan. hal mara way wada bixin karaan, maalin walba inay bixiyaan way u bannaan tahay. hal mara inuu 30 miskiin uu quudiyana way u bannaan tahay. waxaase sii fiican in maalin walba mud uu bixiyo. nacam, gabadha hadday ay caado aysan qabin ayadana soomku waajib buu ku yahay. xadiidkii caaisha ayaa ku tusaya, nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, waxay tiri kunaa nu'mar, waxaa nala amri jiray bay tiri biqadaa'i sawm, nalama amri jirin salaada inaan soo qadayno. intaan caadada ku jirna salaada naga tagto inaan soo qadayno nalama amri jirin buu yihi nabi sal alla alayh wasalam bay leeda caaisha. haddii ay qabto dhiig umuleed ama umul ay tahayna ayadana soon lagama rabo, qiyaasan cala alxayd. xaydkii ayaa looga qiyaas qaadanaya. axkaamtaa marka si kooban inuu qofku usii ogaado waa muhiim. xalqada dambe ayaanu ku tilmaami doonaa ayadana insha allahu tacaala waxyaabaha soonka jabiya, waxyaabaha la doonayo inuu qofka iska ilaaliyo. xalqada xigto ayaan kusoo tilmaami doonaa. hada akhiruhu, sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam.